السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. caawa halkan waxaan isku nimi oo goobjoogna ka ah guddiga qabanqaabada 18 May oo hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaanu caawa halkan ka ciilaaminaynaa oo aanu ka sheegaynaa waqtigii 18 May ayaanu halkan deydkii loogu talagalay aanu ka cayimaynaa. waxaanan ku soo dhaweynayaa oo kelmadda halku dhaga iyo maalintaba ku dhawaaqi doona madaxda iga dambaysa. رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سوماليلاند قول، سوماليلاند مدنمو، سوماليلاند هرومر، سوماليلاند نبضي عانو، مدحوينة كحجينكا، وزيردا مايركا، قدقة قابضة سديدية 8 ماي. caawa halkan waxaynu ka iclaaminaynaa sanadkan oo 7 guuradii maxaanku dhahdayay ka soo wareegtay xorriyaddii dib u la soo noqoshada Somaliland. waxaynu ku iclaaminaynaa sanadkan halku dhageenu waxa uu noqonayo. sanadkan halku dhaga Somaliland waxa weeye isku tashi iyo isku tiirsanaan baa qaran ku taabagala. isku tashi iyo isku tiirsanaan baa qaran ku taabagala. waa inta ay Somaliland halkan ku soo gaadhay. waxaan aynu ognahay in sanadkan 18 May ay naga soo gelayso bishii barakaysnayd ee Ramadaan, ayadoo oo marka ugu horeysa aynu hambalyeynayno ciidamadeena qaranka ee noocyada kala duwan ee qarannimadeena iyo difaaceena iyo ilaalinteennaba heeganka ugu jira. 18 Mayna dabaaldega inoo samaynaya. maalinteenna qarannimadu waa 18 May, laakiin iyada oo la tixgelinayo barakada bisha Ramadaan iyo xanaanka ciidamada, ardada ilaa iyo jaamacadaha, shaqaalaha ururada bulshada ee ka qayb galaya dabaaldega 18 May, innagoo xanaankooda tixgelinayna. maalinimadeennii qarannimadeennuna ay halkii inoogu eg tahay ayaa waxa aynu maalinta dabaaldega ciidamadu ay marayaan aynu ka soo horumarinaynaa maalinta bisha barakaysan ee Ramadaan, oo waxaynu dabaaldegeena u soo raraynaa maalinta bisha Ramadaan ka horeysa. taas waxa weeye dadweynuhu waa inay u fahmaan maalinteennii qarannimadu waa halkeedii, qarannimadeennuna waa halkeedii. hadda waynu taabagalayoo ilmihii maalintaa dhashay 18 May 1991 maanta maxaanku dhahdayay waa 27 jir. shaqaalaha dawladdu ka mid yahay, ciidamada qaranku ka mid yahay, jaamacadihii bay wada dhammaysteen. marka iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweyne ku-xigeenka. maalinteenniina kamaynaan sal guurin laakiin bisha Ramadaan ayaynu uga tudhaynaa oo xanaanaynaynaa ciidamadeenna dabaaldega maraya. sababtaa awgeed baynu u soo raraynaa maalinta bisha Ramadaan maalinta ka horeysa inaynu dabaaldegeena marno. 18 Mayna sidii caadiga ahayd aynu nasan jirnay ee u dabaaldegi jirnay baynu u dabaaldegaynaa. madaxweyne ku-xigeen ku soo dhow. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. marka hore waxaan salaamayaa dhammaan xubnaha guddiga qabanqaabada, marka labaadna saxaafadda ay hor joogta, marka saddexaadna waxaan salaamayaa dhammaan shacabka reer Somaliland dibadda iyo gudaha meel joogaba. sidaa la sheegay waxaan maanta halkan soo joogsanay inaan iclaamino ama ku dhawaaqno sanadkan oo sanad khayr qaba ah, sanad barwaaqo oo abaarihii aad mooday soo daba joogay sanadaha badan aynu ka soo kabanay oo ilaahay inoogu nimceeyey roob fara badan. haddana sanadkan iyo sanad guuradeennii 27aad ee maalinta qarannimada Soomaaliya la soo noqotay oo ku beegantay maalin Jimco ah oo Ramadaanna sida la qiyaasayo ay noqonayso maalintii
labaad ama saddexaad ay noqonayso waxaan sidaa wasiirku sheegay innagoo dad islaama ah rabadaankana aynu culayskiisa garanayno cidda culayska u badan ama ashcaarta muujisa dareenka qarannimada somalilan tahay ciidamada qaranka waxaa la isla gartay inay rabadaan iyo maalin jimca oo iyadna maalmaha barakaysan ee ilaahay noo soo dejiyey ka mid ah inaan soo qadinno oo aan ka dhiganno 15 bishan shanaad maalintii aynu dabaaldegaynay aynu muujinaynay qarannimadeenna iyo goonisutaaggeenna sidaa darteed waxaan dhammaan shacabka reer somalilan dibad iyo gudoba ugu baaqayaa inay u diyaargaroobaan isla markaana xoojiyaan maanta dabaaldegyadooda meel ay joogaanba iyadoo maanta taariikh weyn iyo maarata sumcaddeenna qaranka somalilan meel dheer gaadhay inaan aada u muujinno dareenkeenna iyo midnimadoonna waxaan leenahay wixii faraqa ama maarata aragtiyahan kala duwannahayna aan maanta halkaas ka dhigno oo aan ku midowno sidaan walba ugu soo midaysnayn dhismaha qarankeenna inaan ku soo gaadhnay in la yska dhigo oo loo midoobo maanta sidaa bisha soonna laysku saamaxayo oo bishii barakaysnayda in laysa saamaxo danta qaranka iyo maaratay dabaaldega qarannimada somaliland sanad guurida 17aadna loo midoobo halku dhageennuna uu yahay maanta isku tashi iyo isku tiirsanaan baa qaran ku taabagalaa taasaa inoo halku dhaga taan meesha ku soo gaadhnay aan maanta ku dhisannahay muddada 30 sannadood ilaahay mooyaane iyadoo inaan maarata gacmo bini'aadan aynaan wax badan ka helin halka ku soo gaadhnay bahayd marka waxaan mar labaad iyo saddexaad ku celinayaa anoo shacabka guul iyo gobonnimo rajaynaya iyo soon wanaagsan iyo sanad guuro wanaagsan oo maarata isgalay inay u diyaargaroobaan dhammaan shacabka gudaha jooga iyo ka dibadduba dabaaldega 18 May sanad guurida 17aad oo guryaha la qurxiyo oo waddooyinka maarata la qurxiyo qashinka loo guro aynu muujinno sharaftii iyo karaamadii aynu ku caamka hayn ilaa maantaynu caalanka qaadanay 1960 Juun aad iyo aad baad mahadsantahay